السلام عليكم meel kasta aad joogtiin waan salaame anoo ah guuleed waliq maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ninka la dhahayo Sheekh Shariif oo garow joogo oo dad badan ka qaylihayaan marka waxaan rabaa inaan dadka baro Sheekh Shariif uu yahay maxaa ku qasbay inuu garow tago maxaa ku qasbay inuu mataqaanaa barmaajo daba joogo dadka inay fahmaan waaye Shariif nin abgaal ka nacab ma jiro adduunku wuxuu ugu nacab yahay abgaal siiba mudulood marka waa nin sheega sababtoo aniga nin wax qoraa oo researcher oo mataqaanaa waxaan fiiriyay marka sababtoo qofka inaan fahamto waa wuxuu yahay maxaa waxaan ku qasbay markuu madaxweynaha ahaa oo ama intuu markuu madaxweynaha noqday islaan la dhahayo Jay Fraser oo State Department ka shaqeyso qaybta Bureau African Affairs haystay waxay wacday Imaam Maxamuud wacday waxay tiri Imaam Maxamuud waa ku tuugeynaa ninkan Sheekh Shariif la dhahayo waa ku ajarnay anaka ma hakeenne ninkan ma naga qabat kaas wuxuu yiri xad yiri ninkan waa nin abgaalo oo dadkiisa oo madax noo ah kaas tiri war ninkan abgaalo xuma ogolay tiri abgaal ma bala tusi kartid waa naag Amerikaan dhaheys waxaas waxay ku qoran tahay meel si ay ku qoran tahay mataqaana maxaa dokumentiyada ku qoran tahay oo haynaa anoo taas la yaaban oo arkayaan waxaan wareystay nin hadda koor oo la shaqeynaya markii uu election ka galay oo 2017 oo Xasan Sheekh oo mataqaana oo ogaaday mataqaana inuu badin doon marka ninkii wuxuu u tagay Sheekh Shariif wuxuu yiri wariya niyo Xasan Sheekh aan 97 oo heestay farmaajo ma dhawe aan kaaga soo qaado waa badahay yiri markaas wuxuu ku yiri waxa ajiibka ah wuxuu yiri wariya xan ku falay yiri mataqaana murtadkaas Xasan Sheekh xan kula hadlay yiri ma kaasaan rabaa mataqaana muxuu ahaa delegateskiisa wixiisa iga tago yiri ninka soo yaabano fajacsan oo wuxuu u tagay Xasan Sheekh wuxuu yiri nin adaadan adiga hadda waa hadii laga badiyo aan rabin oo Xasan Shariifna aadan wax weydiiseen bal muu ogasho yiri mataqaana Shariif inaan siino 97 si ay u badisay si uu u badiyo mataqaana Sheekh Shariif markaas yiri wax kama qabo yiri nin walaalkii waay anigu waa siyaa 97 hal hayimaadaha ay weydiisto bis ilaahan kugu dhaashay bal dhageysay hadalkaas Xasan Sheekh waa ku mucaarasana marka qaarkood dib ma leh waxyaalaan ku heesanaa laakiin qofka at least wuxuu dhahay war ninkan hadduu badihay anigu waa siiha ninkan nin walaalkii waa fiiriya waa loo tagay waxa la yiri niyo Xasan Sheekh waaba ogolaadee hal uu ku weydiiso una u timaadaad weydiisatay bis jawiya xalis dhahay at least ninka waa ogolaa halaas moogta wuxuu yiri ka yiri baqtiga asuu wuxuu u tagay farmaajo oo ugu shubay fiiriya farmaajo saas uu ku soo baxay horta in la fahmo waay abgaal nacib uu qabo uu farmaajo noo keen asaana awalba noo keen asuu kacbada u aad u duceey dareen ku galna marka inuu falayaan ku nin sheega ninkan 3 sano ka bacd 2019 kuma ahayd mise 2020 ahayd ama 4 sano ka bacd waxay fartay xaq inuu ka soo baxo in si xun loo galo oo diyaarad loo diido inuu raaxta waxaa dhacday in mataqaanaa la isku dayo in la dilo maanta waa garoweysanahu ku leeyahay mataqaanaa garow ugu daba tagay ninkii farmaajo haddaan nii sheego tan foolxumada taalla waxay tahay garow farmaajo nin oo waardiye u dhiibay muxuu ahaa ninka la dhahayo muxuu ahaa Sheekh Shariif garow ugu dhiiba ninka waardiyaha maanta Sheekh Shariif waa ninkii hotelka ugu yimid oo la rabay in la dilay la rabo waa maanta kaasa waardiyaha bal aqligaas fiirshay marka dadka waxayna fahamsaneen Shariif qofku yahay nin abgaal ka nacab ma jiro taas hal ogaado horta yaan la isku gamban ninka nii sheegayo waa nin ما تقانا ما هو wax oo aan iska sheegin waa wax cad oo la og yahay marka taas dadka inay fahmaan rabaa
waa mahadsantihiin musalsaladan hadday bilaabatay sheekh shariif sheekhna nama ahe ka hari mayno ninkan in laga dhigo waayo mataqaanaa baarlamaanka meesha u joogo agoorna uma joogo dan abgaalna uma joogo waa ninka cadowga nagu koowaad waayo asigii al-shabaab waxay isdhamaan male anaa hadda nii sheegaa ogaada asalaamu calaykum